هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. هي الحلقات تملأني بحب هي الحلقات تحفظني بآيات من الحلقات تحفظني. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله منها وإياكم. أيها الأحبة marka koobaad ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mahad dhammaanteed iska leh. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa'i alxusna wa sifaatihi alculaa inuu ilaahay kelimadda xaqa carabkayga uu ku sugo, dhagaheennana uu maqashiyo wax wanaagsan insha allahu tacaala, waxaan ku hadlaynana ilaahay inagu anfaco subxaanahu wa tacaala. intaa kadib sida la tilmaamay waqtigu waa iska cidhiidhi oo dadku waa xilli qado weeyaan. waxaan rabnaa inay kelimaddu urursanaato insha allahu tacaala oo aad iyo aad u gaabnaato. mawduuca sida la tilmaamay waxay ku saabsan tahay dhaqanka iyo dhaqanka wanaagsan ee looga baahan yahay qofka muslimka ah ee ganacsadaha ah. marka insha allahu tacaala intaynaan taa gudagelin waxaynu tilmaamaynaa tijaara ama ganacsi ama shaqaysi muxuu yahay. ganacsi waxaan ognahay waa waxa ay adduunka noloshiisa ku dhisan tahay, waana wax aad iyo aad muhiim ah oo ay tahay qof kasta inuu ku dadaalo inuu magaranaysa shaqaysto wixii uu cuni lahaa oo uu kasbado. kasabka noocaas ee lagu dadaalayaana wax aad iyo aad u wanaagsan ayuu nolosha bini aadamka uu ka bedelaa guud ahaan. qofka muslimkaana wuxuu nebigu faray sala allahu calayhi wasalam inuu ku dadaalo inuu cuno wax xalaala oo uu shaqaysto. xalaasha uu shaqaysanayaa waxa ay markaa runtii kor u qaadaysaa qofka, ayay kor u qaadaysaa. waxa ay ka korinaysaa inuu gacanta hoorsado oo ah tilmaan ama dhaqan aad iyo aad u liita. nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaad ogtihiin inuu xadiis saxiixa uu ku leeyahay midkiin inuu muxuu ahaa xadhiggiisa qaato oo uu bannaanka u baxo oo soo qoriyo gurto ama soo xaabaysto ama soo qoriyaysto oo dabadeedna waxa uu ka soo helay xaabada ama qoryaha ee uu gaday uu cuno ayaa waxa uga wanaagsan 100 goor in maxaa la yidhaahdaa uu dadka wax weydiisto ama ha siiyaan ama ha u diidaan. saa darteed qofka muslimka ahi waa inuu yahay qof ku dadaala mar walba, qof ku shaqaysanaya wixii uu cuni lahaa. sidoo kale nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay alyadu alculya khayrun min yadi sufla. gacanta sare ee wax bixinaysa ee dhiibaysa ayaa mar walba ka wanaagsan gacanta loo dhiibayo. saa darteed qofka muslimka waxaa laga rabaa inuu ku dadaalo inuu noqdo qofkii isagu wax dhiibi lahaa, ilaahayna ugu dhowaan lahaa arrintaas iyada ah. xadiis kale nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay ma akala axadun طacaaman qad khayrun min an ya'kula min camali yadihi. qofna weligii ma cunin cunto ka qiimo badan in uu cuno waxa gacantiisa uu ku shaqaysto. waina nabiy llahi daawuud calayhi الsalaam kaana ya'kulu min camali yadihi. nebiyullaahi daawuudna calayhi salaam wuxuu ahaa mid cuno gacantiisa wuxuu ku shaqaysto. u fiirso, nebiyullaahi daawuud tilmaamo badan baa laynaga siiyey. qur-aanka inuu nin oo aad u cod macaan ahaa baa laynaga siiyey. cibaadada inuu aad ugu qiimo badnaa, soonka nebiyullaahi daawuud. tijaaradii waa kana waa laynoo sheegayaa. najaar inuu ahaayo dhistaa ahaa baa la tilmaamay. waxaasoo dhan waana nebi ilaahay uu doortay subxaanahu wa tacaala. marka waxay ku tusinaysaa qiimaha ay leedahay qofka muslimka ahi inuu shaqaysto oo uu magaranaysaa ku dadaalo in uu cuno waxa gacantiisa uu ku kasbanayo. qodobka koowaad ee aan doonayna marka waxa weeyaan walaalayaal ee aynu rabno inaynu wadaagno, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يعني أفرسوا وحولها دحدين يالا باطل هكعني نبي الله سبحانه وتعالى. ما حد كعني كرتان تجارة أو ولبا إيوه يسديبت أو رال اللي يسجيه بيع oo muxuu ahaa qodobada ugu muhiimsan ee uu ku xidhan yahay uu yahay in labada daraf ee wax kala gadanayay ay raali isaga yihiin waxa ay kala gadanayaan oo wax la isku bedelanayo oo aan bedelanayo telefonkan lacagna aan ku bedelanayo, cunto aan bedelanayo oo aan kaashkayga ku bedelanayo iyo wixii la halmaala. marka
waxa ilaahay subxaana wa tacaala inoo sheegayaa waxa aynu cunaynaay inuu noqdo tijaaro iyo wax ma garanaysaa dhexdeenna aynu shaqaysanay iyo wax la halmaala fadligeeda iyo qiimaheeda maxaa ka dhalanaya haddii la tijaaraysto in xoolo la helo in la waayo labaduba way ka dhalanaysaa laakiin haddii la helo oo ay timaado qiimaha imanaya muxuu yahay nebigu wuxuu tilmaamaya sala allahu calayh wasalam nicma almaalu saalix lirajuli saalix dad waxaa ugu qiimo badan ama xoolo waxaa ugu fiican xoolo wanaagsan oo qof wanaagsanna gacantiisa ku jira cuthmaan radia allahu tacaala canhu wa ardaah waad garanaysaan saxaabadii qiimaha badneeda ganacsatada ahayd buu ka mid ahaa muxuu ilaahay uu ku siiyey arrintaas iyada ah ilaa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu sadaqadaas u bixinayey daraahimtii uu bixiyey saa isagoo u gedgedinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay maa darra cuthmaan maa camila bacda alyowm walle cuthmaan ma dhibo maanta wuxuu sameeyey wax ka dambeeya cuthmaan radia allahu tacaala canhu wa ardaah wuxuu kasbaday in uu magaalada madiine oonkii ka bixiyo oo ciidankii yuhuudigu lahaa uu ku dhibayey kaashkiisa intuu ku gado uu sadaqo uu ka dhigo saasay ahaayeen saxaabadii ridwaanullaahi calayhim qofka marka shaqaystaay ee gacanta sare ahi mar walba waa ka qiimo badan yahay qofka ma garanaysaa ee hooseeya ee gacanta dhiibanaya saa darteed waxaa lagama maarmaana qofka muslimka ahi inuu ku dadaalo inuu dhidido oo uu dhididkiisa cuno ilaahayna subxaanahu wa tacaala abaal fara badan ayuu arrintaas iyadaa ku siinaya waxaa kaloo lagama maarmaana inaynu ogaano tijaarada ilahay baa inoo fasaxay xataa waqtiyada ugu khatarsan oo la cibaadaysanayo cibaadooyinka kuwa ugu qaarisan lagu jiro tusaale ahaan xajka oo kale ilahi wuxuu leeyahy subxana wa tacala laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum dhib dushiinna ma ahan inaad dalbataan fadliga ilahay fadli buu ilahay ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala yani fadli iyo wanaag iyo dheeraad ayuu ilaahay ku tilmaamaya in la shaqaysto saa darteed inaad shaqaysato oo adoo xataa xaj aaday oo laguu diiday lagwi oo laguu diiday rafath oo laguu diiday hadaltiro oo laguu diiday wax kastaoo xun ayaa haddana waxaa lagu leeyahay dhib kuma saara inaad shaqaysatood xamaalato markaase haddaad kildhigaaga qaadato ama aad katalkaaga qaadato shaaha ku dhex kariso khaymaadka carafo oo aad dadka kula fadhiya ka iibiso oo aad lacag sidaa ku hesho qiimo iyo fadli baad helaysaa iyo wanaag waxa aad shaqaysatay baanad sadaqaysanaysaa hadallo badan baa inoo soo socda ma rabo inaan ku dheeraado salaada marka ilaahay subxaana wa tacaala uu inaga fasaxay yowm aljumca muxuu ina yidhi faidaa qudiyat الsalaatu fantashiruu fi اlardi wabtaguu min fadli illah u fiirso waxaa la yidhi markaad salaada dhammaystirataan magaaladiinna yaaca oo dhulkiinna gala oo maxaad raadinaysaan fadliga ilaahay raadiya subxaanahu wa tacaala fadli baa ilaahay ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala waana wax macruuf oo la yaqaano qofku haddii uu shaqaysto oo uu dadaalo kafaaf buu helayaa wuxuu helayaa dhowrsoonaan cafaaf buu helayaa iyo inuu dhowrsoonaado oo isaga in wax la moodo mooyaane cidna uusan isagu waxba moodin waana midda ay shareecadu ay ina farayso taa macnaheedu ma aha dadku kulli inay wada ganacsato intay noqdaan lacag wada helayaan oo aan la iscaawinaynin maya waa waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmaddiisa ku dhisan dadka qaarna in loo buuxiyo qaarna lagu cidhiidhiyo waana xikmad ilaahay kuma xidhna qofka qualitigiisa iyo jawdadiisa iyo qofka shakhsiyaddiisa wax ku xidhan maaha laakiin waxay ku xidhan tahay qorshe ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo imtixaan liyabluwa يعني إله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا إلهي إنه إذن امتحامه أو إن امتحامه كأني سفي عن أشقين يا أي أرمتا إذا كحرنتا قولك الله بعد تجارة وهلا شقيستو وان قرنا هلا شقيستو waxaa markaaba soo degdegaysaa shareecadeennu dawaabideeda iyo waxyaabaha ayna fartay yaysan tijaaradeeni noqonin mid gacanta midig iyo tabidixba intaad isugu geyso diintaadii iyo cibaadadaadii iyo khayrkaagii iyo noloshaadii oo dhan aad gadaal ku tuurto ilahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala markuu ammaanayey dadka qiimaha leh rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illah ورب إلهي سبحانه وتعالى كواس لقاش كينيو أين المشغولين جناعسي إيه وحجدد منا أين كم مشغولين الله حسكيس سبحانه وتعالى إلا لسه كسي إلهي سبحانه وتعالى مركب وين تكون داشو إن أينكم مشغولين وأين كل تجيب إلهي سبحانه وتعالى marka qodobka labaad aan doonayna inaan faa'iideysano waxa weeye tijaarada aan shaqaysanaynaay waa inayna ku noqonin masaajidkeenna waa inayna cadow ku noqonin waa inayna diinteenna cadow ku noqonin waa inaynan mustaqbalkeenna iyo sharafteenna iyo qiimaheenna iyo aakhiradeenna waa inayna ku noqonin cadow oo waa inayna noqonin
عباد الدرهم والدينار وإننا نقولين ده الدرهم iyo diinaarku aqligooda oo dhan uu yahay oo waxa xakameeyo uu yahay oo meesha shilin ka helayaan kaliya aqligoodu yahay waa inayna noqonine waa inaynu gacanta bidix ku qabanno diintana midigta aynu ku qabanno oo masaajidda aynaan cidlaynin oo aynaan guriga iyo tarbiyada awlaadda aynaan cidlaynin oo aynaan ihsaanka iloobin oo waxa la wixii ilaahay na faray wanaagsana ayna inaga kaxaynin weeyaan ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah dadkii ilaahay rumeeyayo yeynan idinka mashquulinin oo idin halaagin xoolihiina iyo awlaadiinu dhikriga ilaahay subhanahu wa ta'ala yeynan idinka kaxaynin oo lahu iyo magaranaysa iyo mashquul ha ku gelina dhikriga ilaahay iyo xuskiisa ha iloobina waman yaf'al dhalik cidda sidaa samaysa maxaa ku dhacaya wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala fa ulaika humul khasirun kuwa khasaareeyo waa kuwa ayuu rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala ilaahay nama khasaariyo qodobka saddexaad aan doonayna maadaama aan qodob ka dhigayno rabnaa inaan dhaqso uga dhamaano taajirka muslimka waa qofka hormariya ilaahay subhanahu wa ta'ala raali gelintiisa ka hormariya naftiisu waxa ay doonayso macnaha wala fahmayaan malaynaya waxa adigu aad doonayso waxa ilaahay doonaya ka horeeya adigu shilin baad rabtaa inaad hore u taajirtaad rabtaa waxoogaa inaad heshaad rabtaa maya qorshaha jira rabbi subhanahu wa ta'ala ka ilaali tijaarada inaad liibaantay iyo dhaqaale inaad hesho qorshe ilaahay ku xidhan weeye xadiis nabiga ka sugan sallallahu alayhi wa sallam waxa uu leeyahay inna ruuhal qudus نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب نبي وحده عليه الصلاة والسلام روح القدس ملك جبريل أيها وحده وحيودي نفنين سندمنين إلى رزق جيد أي كأوف سطوي كنا ما يستراتو أجشنا أي أجادو أما أجشة سجيسا وحي حوالي لقوط لقلنا كل وجه ليس شكل الآن سادرتين وحوليه النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأجملوا في الطلب إلهي أنت كعب ستان ساد وحور هذين إنسان حاجاتية سفي عن وحور هذه أو سوى نفسنا وقيمة له وحور هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولما حديث كانوا حكوعب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق يسكو حنبار متكين رزقه إنه كصوته على معصية الله إنه إلهي عاصية سبحانه وتعالى محايا لي فإنه لا ينال بما عنده إلا بطاعته إلهي أكتي سوحي الله وقران شاه إلهي مبلغه له نبي قول صلى الله عليه وسلم حديث كلام الإمام أحمد يا غيرك يسوع صارن إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه قفك واحد لو دين يا حوله ذنب وقلي درتيت رجع لقال لي هاي إن تصون قطع لقى ربا أسئلسو مركه هذا بعض يرداه أو يسقرون ويدو هاي صارن من حرام تقول هذا ما معنى هذا إلهي وقت جين ساتسوق يساو كوكو طلق علي كد ذلك الحراشة كد ذاش وياي إلهي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وفرسوا هدي جمعه اللوير وآيات دي مهرق ورانا آخرين إسكا هذه معاملة هذا مركي أتصور لما يسطو إلهي بكوفة صحيح قولوا كان أفراد ولا لياليان دون إننا وذاقنا وحويان وحا ليلهدو حاران تينا نسكا إلى علينا حارانتا inaan iska ilaalino qofka taajirka ee muslimka waxa looga baahan yahay waa inuu xaaraanta iska ilaaliyo mu'minka taajirka ee wanaagsan waa qofka xaaraanta iska dhowra ee ka ilaaliya calooshiisa inuu xaaraan geliyo ilmihiisa inuu xaaraan siiyo xaaraanta iska ilaaliyo qofka muslimka maxaa yeelay xaaraantu waa khatar kullu lahmin nabata bisuhtin hilib walba oo ku kora xaaraan fannaaru awlaa bihi naar ba iska leh وخطر مركينا نار قرطو والنار عنتو ومصيبه نارها عنين نارها عنين وحلال شقيسو اسويدي مشكلة دي جرتا waxaa kamid wala layaal ee runtii inaan si fiican ugu baraarugno u baahan oo qof kasto aniga u baahanaya adigu u baahantahay qof kasto u baahan yahay marka aynu shaqaysanayno si alla sidaynu doonayno isaga shaqaysanaa saynu inagu doono waxba ma weydiino culimada cilmiga looma kaco barnaamijkii waa la iska fasaxan yahay ama haday bahashu noqoto wax adduunyo ku saabsan medical doctor aadayna specialist aadayna halkan aan qabanayna barnaamijyo kala aadayna marka fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun weydiiyo dadka aqoonta leh hadeydaan idinku garanaynin ayuu leeyahay rabbi subhanahu wa ta'ala marka waxaan u baahanahay inaynu ku dadaalno inaynu xaaraanta aynu iska ilaalino taajirka muslimka ahi waa qofka iska ilaaliya حارانتا إلهي وحده سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وصوشيغني مركز يا وحده سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام حوله إن حارانها كعننا أيها رب سبحانه وتعالى قولوا كالشنادة ربينا نوجد بوحويا
qofka muslimka ee qiimaha leh muxuu ahaa taajirka waxa laga rabaa akhlaaq iyo dhaqan ayaa looga baahan yahay inuu sameeyo dhaqamada midka ugu horeeya ila dhageysta dhaqamada midka ugu horeeya waa maxay waa inuu runlow noqdo qofka muslimka ee ganacsanaya run waa inuu ku dadaalo waan ognahay innaga dhaqanka diinta nin baan shalay aan sheekaysanahay wuxuu yidhi Soomaalidu diinta dhinaca aqaa'idda iyo barnaamijkaas ay ku fiican yihiin laakiin mucaamalaadka kuma fiicna waa war aqliga geli karo macquul maxaa keenaya tarbiyada waxoogaa inaga khaldan sida muuqata oo wixii qofku salaadii waa ilaalinaya masaajidku waa buuxa mar alla markay mucaamala timaadana nin weyn baa wuxuu ku leeyahay home affairs kan u socdaaniyo berri baan rabaa inaan aado oo khamiis salahan ayaa oranaysaa marka laakiin waan yar mashquulsanahay warma iska dhaafo isniinta tago berri buu iga dhacayaa sharcigi nima hadda koor ku yidhi markaasuu iska dhaaf dhimaro isniinta tag haye oo maxaan dhahaa markaa waxaad tidhaahdaa niyahow waan xanuunsanaa استغفر الله دي موالنتاي ما انيو بلايا ما قبه بين ايغا شيكسي واي اد بنت ايغا شيكسينيسا يعني واخ ديبا كما هيسو قفكا مسلمكا انو بين شيغو ee Soomaaliga wuxuu rabo iska sheegaya inuu been sheego oo wax mardabeeyo magaciisa inuu bedelo wax dhiba kuma hayso duruufta kaliftay qayb fara badan oo kamida hebel baa la yiraahdaa waxan masaakilka ee qaxa iyo dhibaatadu ina baday ayaa waxay keentay dhaqan inoo noqotay in qof muslim oo musalli oo cibaadeysanaya uu beenaalayahay wa'uudu billaah إلهي سبحانه وتعالى وحلا جمع جنجلا قف قاله أو قال له هو إلهي حالك سوقي ولقي قالها وأن ما قرنا يسامحوها هاي تنية وترتين تصلون ولا قالتها هنا الله جاي بين هذا بين ولقي أو يمنن ولا يابله وأمرك ومصيبة وحكينيسا دقن كي معاملات كي أيها إنك خلطان سادرتين وحكوا بعد اللي جبه هي قف كمسلم كي جناح صدها وإنه كده على محي رنت وإنه كده على ويا رنت إنه كده على ويا النبي صلى الله عليه وسلم aad buu arinta iyada u booriyay runtana uu sheegay qiimaheeda wad ogtiin alaykum bisidq warun baan idinku ogahay wadi nabiga kaleey salaatu wasalaam maxaa yeelay fa inna sidq yahdi ila albir runtu samaha iyo wanaaga ayay ku kaxaysaa wa inna albirra yahdi ila aljanna samaha iyo wanaagaasina jannada ayuu wadadiisaya wala yazalu ar-rajulu yasduq qofku madaynay inuu runta ku dadaalo hatta yuktaba inda allah siddiqa ila ilahi agtiisa looga qoro runlow marka qofka muslimka asaas looga baahan yahay qof runlow ah oo aan lagu dhiiranaynin in la yiraahdo been ba sheegaysa laakiin hadii wala beeraala tahay a'uudu billah dadka qaar waxaad arkaysaa waa lagu sheegay waxa lagu leeyahay hebel sideedaba haddaad aragto hebel wax run ah magaca haddaad dhahdo hebel ku dhuur runlow kaya inta kale oo dhan been iyo propaganda waa musiibo waa arin aad u liidato way qofku in yaani magaca kaliya ay kaga soo hadho ma garanaysaa muxuu ahaayay runtii وحول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيحة التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء وحول النبي عليه الصلاة والسلام قفك تاجر كأه رنلو كأه آمن كأه وحاو معوذ النقون يا مالنت قيامه مع النبيين والصديقين والشهداء النبي يد إله سبحانه وتعالى رنلو ياشا يوم ما قرنيسا شهداء أيو لتشري يا قلق عيدا كاسو لصو ما قرنيسا محوها هاي أروريا يلا إيمانيا جنة إيه ما قرنيسا وناقة وكو إلهي لقبر سبحانه وتعالى مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا كو إلهي لو يديستويا مركا كو سوق النقونيا قفك التاجر كايا مسلم كا إيرن لوغا يا رنتا أيضا كود دالا صدرت الوحى الله يوم أرمانا أرنتا أيضا إنا آديات أنا كود دالو إنه رنتا كود دالو نبي وحوليه صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار بمال ما كم يدير النبي عليه الصلاة ورجعنا عصتدي يا الله يا سوينا جماعة مركز ويسو دقة تاجين وأمر لقون تيسو تاجين هو حيد هذا الرسول كيرا يوه وكل دقة سنة مركز سوتش تسدين نبي حكود عليه الصلاة والسلام إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا دتك جناع سترة ما لنت قيامة وحل صوص على دونا يبغى فجارة في الدنبيليال يبغى أبلا صوص على دونا فاجر واقف بعض إلهي كبح يوم بابي او انكار كو دحday weeyaan wuxuu nabiga kaleey salaam khatar weeyaan yaa la soo saari doono maxaa dhacay illa man ittaqa qofka ilaahay ka baqan mooyaane wa barra samafala u fiirso ma samafasha ganacsigaaga mise waxa taa ka go waxa laga sheegaa meelaha locationada hadii uu change mid maxaa la yiraahdaa
waxoogaa uu ku yar dhibo ka dambaa laga jaraabaa la yidhahdaa waa isku soo celiyo iyaga un ka qaad waa in aladiina kafaruu waxba kaama gelin sax maa waxaas waa dulmi iyo xaaraan iyo musiibo iyo dhaqan xumo iyo waxyaabaha baabaa inoo keenaya weeyaan ilaa man ittaqaa wabara wasadaqa buuhi nebigu calayhi salatu wasalam ilaa qofkii ilaahay ka cabsado subxaanahu wa tacaala ee samafale baarinimo sameeya ee runta sheega buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam qodobka aan doonaya kale inaan u gudubno walaalayaal waxa weeyaan alibticaad can shubuhaat markaynu ganacsanayno inaynu ka fogaano waxyaabaha aan la hubin xalaashooda iyo xaaraantooda oon iska ilaalino oo haddaad ogaato shakiba galo aad bannaanka ka marto maxaa yeelay inta xalaasha ah badan boqolaal goor ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunkan waxa uu dhigay dushiisu xalaal bay u badan yihiin xaaraantu wax kooban weeyaan saa darteed xalaashaa badane in xalaasha loo kaco oo laga shaqaysto laakiin in qiil loo raadiyo oo maanta oo dhan kolba wadaad loo tago oo xaggan lagaga yimaado oo halkan laga dayo oo waa musiibo weeyaan aan ma garanaysaa aan loo baahnayn dadka qaar kuwa qiilka raadinaya waroone kuwa iyagu waxay leeyihiin sheekh wadaad warkiisa uma baahni anahay wareerinin baasha meesha soo Afrika maxaa loo yimid hala shaqaysto هلا شقيست ورا هلا شقيست هلا دنباو نار هلا قال ما هي حوله إلهي لوجو دوادو أو تشنل لوجو كسبه هلا شقيست ويا واحد لو بعينه ماشى إنه أني مدو إلهي على جعب سبحانه وتعالى وايه taasna marka waa mid muhiim ka loo baahan yahay nabiga sallallahu alayhi wasallam waqti xadiiskii caanka ah dacma yaribuka ila ma la yaribuka wada nabiga alayhi salaam soo iskaga tag waxaad ka shakido waxaadan ka shakiyeen aad ayuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam ma doonayeen aad iyo aad ugu dheeraado qodobka kale aan doonaynay inaynu ma garanaysaa muxuu ahaay ku dadaalo waxa weeyaan in aynu sadaqada badino markaynu tujaarnahay aynu shaqaysanayno gacanteenu inay furanto oo ayna soo laabnayno sida yahuudda ilaahay uu ku tilmaamay aynan luqunta ku xidhanin waxyaabaha runtii meesha aan jeclahay marar fara badan inaan ku celceliyana aan jeclahay waxa ka mid ah qof kasto inaga mid ah markuu meeshan soo galay illa alqaliil an-naadir dad yar oo kooban waa laga yaabaa oo ganacsi wadanka u yimid oo waxoogaa meela kala yimid laakiin boqolkiiba 99.9 dadkeenna meesha fadhiya iyo kuwa kale ee Soomaaliyeed muslimiinta ee wadanka jooga Allahumma labbayk inaga xaaladdu inaga taagan tahay oo ilaahay xaalkeena og yahay oo Tanzania 2 bilood la inagu soo xidhay oo ma garanaysaa maxaa Mozambique ku sakanaa inagu soo cuntay oo inkaari inagu dhacay ay simaadiye balaayo oo dhan oo wada qalqalafsadoodu moodaraha aakhiraad ayaynu soo galnay kuwii naga soo horeeyay khayr Allah siiye ayaa waxoogaa gacanta inoo yara fidiyo meel aan seexanay habeenkii boqol baa la isugu keen daray waxoogaa markaan joogno dabeena meel baa la inageeyay inuu ka shaqaysano waynu ladnaana dabeena wixii oo dhan buu inuu lownayo sheekadii aad garanaysan oo ma garanaysaa inama waristu kaabiran an kaabir ruuxan anagu aan ka soo gaad baan u lahayn anaga meel miyaan taqaana sheekadii ma garanaysaa muxuu ahaay qaaruun ayaynu la wada nimid waynu isilowni qofka wuxuu yiri dufku bahay in caam wado kolba ki dambeeya sida dumarka raacdaan dufku bahay in caam wado dumarka noocooda uu dhaafsar baale Allah uu naxariisto subhanahu wa ta'ala yaani qofku inuu markiiba wixii la soo dhaafay daqiiqadiiba iloobo waa arrin aad iyo aad u liidata waa inuu xusuusto waxa uu soo maray oo uu Ilaahay uga shukriyo subhanahu wa ta'ala nabiga wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wa sallam at-tahadduth bi ni'mati Allahi shukr ni'mada Ilaahay in laga warramo laga sheekeeyo waa alla mahad celin weeye subhanahu wa ta'ala wa tarkuha kufr in laga tagaano waa gaalnimo ama kufr ni'ma weeyaan ni'mada Ilaahay oo lagu gaaloobay weeyaan marka ma doonayna aad ugu dheeraado haddaan damco inaan qisadii kaliya ka sheekeeyo maanta oo dhan iyada musalsal idinku filan oo waxaan soo maray kadeed iyo rafaadaha iyo sida Ilaahay ugu faragoday subhanahu wa ta'ala ee aan ma garanaysaa u ladnaaday nicmo Ilaahay ii siiyay ee ma garan waxa soo qisay u baahan tahay laakiin inaan qiraan ogolahay hortiina aan ka qireen Allahumma sallim iga marayso inaan soo galay oo dhexda kuwa ugu roonaada waliba ku jiray lixisaan soo socday qolada bilood soo socotay meesha way fadhida oo rafaaday oo inkaar laakiin kulligeen wixii oo dhawaan iloonayo xisaabo kala ka sheekaynayna waxa soo wana qaadnaa iyo waxaan loo joogay markay inaan ku mashquulinay aynu nicmada Ilaahay garanno oo Ilaahay oo nicmadaadna siisay waan kaaga shukriyeynaa aan dhahno aan sadaqaysanna waxa Ilaahay uu ina siiyay waxaanu niri sadaqada in la badiyo weeye arintaas iyada ma ana leh ma nabiga alayhi salatu wasalaam oo fiirso wuxuu leeyahay nabiga alayhi salatu wasalaam ya ma'shara tujar wa hadith kale oo kiyo kala kulankii ganacsatadaay in al-bay'a yahduruhu al-lagwu wal-halifu war ganacsatoy bay'a waxa soo dhex وإذا اشترى وإذا اقتضى أبو النبي عليه الصلاة والسلام الله أن حريست قف وفرسه نحريست إله سبحانه وتعالى الله أن حريست إله إنه نحريست آمين ده الله أن حريست أبو النبي عليه السلام قف سمح محل ضافد له ضافد
dabacsan wanaagsan wax dhaafa waa goorma marka uu wax gadayo oo wax gadanayo dayn qaadanaya intaba dayn qaadanayo ha adkaanin ha noqonin mar haddii gacantaada shilin uu maalin ka baxo ama mana sheegad war waxaayo niyow waana lagu salliday way una dul saaran yihiin annagu ma iyagaan u acuudu billah war adhihina waxaan ilaahay baa kuugu dhiibay waa iska imtixaan anna waa lagugu dhibayaaye aayar naxariis muujiyo ha is adkaynin buu leeyahay nebiga sallallahu alayhi wa sallam xadiis kale wuxuu leeyahay nebiga alayhi salaatu wasalaam قيسو كشيكي النبي عليه الصلاة والسلام نين تاجر أو قناعصدا أيا وحو بحين شري الدين بولي النبي عليه الصلاة والسلام مركزا مركو أركم مد أي عيليني كتاهيو أي تشيك كتاهي حالده كو أدك تاهي وحو كو رنشري شقالي هيسا إسكداي وفراها كغابة وحالغا يابا إلهي إنو النور نعفو سبحانه وتعالى إلا أنه با ودنبيان قال إلى أحوانا يخلطن حساب بدن باتشرة بل اسكدا يورن شري وحول النبي عليه الصلاة والسلام إلهي باو ضافي سجينا سبحانه وتعالى سيدي با إلهي كو أبا المريو ضافدي ودافي أي إلهي كو أبا المريو سبحانه وتعالى سجينا والله ضافي قولوا كلا دوني سجينا وذاك نوح ويان إن أي نمجرنا يساقفكي باعي وحراء باع بعد قدي وحبات كيبسي way u yar suurtoobi weyday waxyaabahan darbiyada aan ku qoran noo rifaan iyo noo ritaan iyo noo noodan faraha badan intaynu ka dayno inaynu dhimrino inuu naxariisanno wey oo qofkii ay wax ka khaldameen haddii ay jiq ku tahay aan ka fujinno ilaahay baa innagana jiqda inaga saaraya subxaanahu wa tacaala waa mid la doonayo ee aynu doonayno haddii qofka muslimka ah ee taajirka ee muslimka looga baahan yahay waana midda diinteenna ay ku fideed ogtiin in badan ayay culimmadu ka sheekaysay diinteennan dad tujaaro innagoo kale ah ayaa meelaha ay sharqi aasiya iyo meel walba u gaadhsiiyey walaalayaal hab dhaqanka ummadda waxa ugu wanaagsan weeyaan waxa kaloo loo baahan yahay oo aan doonaynaa isagana inaan ka digno waxa la تطفيفك هو ميزانك أو لدمه أو أما عدالتي لقته إلهي سبحانه وتعالى القرآن كله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون كوا هلاك بأسقنا ذو إلهي سبحانه وتعالى مركا إياك حقودة حتى قضياتك حتى قرت عادية dhaqan waxa inoo ah marka adiga xaggaaga aad rabtana wad oofsanaysaa wax walba waxa weey xaggayga marka ay muxuu ahaay xagga kala tahayna minus ila aad baabi'iso marka waatii qisadii yar qosolka midanahayd waliimo fadhiday waxay dheen waliimo oo muxuu albaabka uu fadhiyo wadaad yar oo xirawa baa wixii la soo galiyay xagga sheekha la yiraahdaa wax walba xagga baa loo dhaafay asna gaaja ka caday sheekhu oo banan iska ladano bilaaya ma hayso laakiin de ixtiraamka iska badnaa dadkeena markii dambe waxay dheen mas baa soo galay isna xagga sheekhu yiri macnaheedu waxa weeyaan haddii baasho ay nooca noqoto waa la isleynaya culaad baa imanaysa waa la isbaabiinaya haddii noqoto inaad xaggaaga uu soo gurato oo aad ilowdo ummadda adigana wax kasto oo musiibo ah iyo bilaaya xaggaaga baa la dhig xenophobia hadacdo balaayo hadacdo kuwaas allah halaago dad habaar baa meesha ka dhacay laakiin haddaan raxiim tahay oo ummadii masaalixda kala qayb qaadanayso oo aad u turayso wixii way hagaagayeen noloshiina waa ay qabsoomaysaa waxa kale oo soo gabagabeynaya waan insha Allah iska soo ururiyaan doonaya maadaama oo leeyri waqtigu waa iska duur iyo ciriiri غشka inaan iska ilaalino غشك يا خيانة إن أنا آدي هذه سجاجره النبي صلى الله عليه وسلم واحد وقت إنه يري من غش فليس منا أو من غشنا فليس منا لبضب قفك إن خيانة نجمد معه النبي عليه الصلاة والسلام ومدن كمتشرو من خيانة راسي معها إن المسلمين تكليه خيانته حتى الرواية قال حديث قال من غش قفك خيانة سما يجود خيانة مرك حرام ويان سادر قفك مسلم كده يعدي سماه dabeecadda qofka muslimka waa tooslaan weey waa wixii lagaga tagay in loogu yimaado weey waa in ilaahay subhanahu wa ta'ala qof ummadda ku xidhaya uu yahay waa qof marka la arko ilaahay la xusuusanayo inuu yahay taajirka muslimka asaas looga raxiim inuu yahay looga baahan yahay bulshadu inay ku soo dumantaan loo baahan yahay nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam sadaqtihin almu'min mu'minka waxa ugu khayr badan alladhi ya'lif wa yu'laf qofka loo soo dunmo ee loo soo dhawaado isna dadka u soo dunma oo dadku ay ma garanaysaa u dhawaadaan yaani jilicsan oo simple ah qof sahlan oo dhib yara qofkaas qiimo la wadi nabiga kaleey salaatu wasalaam amma qofka adag ee ka kan ee laga kala durkayo خير ما لها بقول النبي عليه الصلاة والسلام سدرت إن لسهلنا هذا وآدي هذا لسود بعيو والله جوا مرمان وهذا كذا لجوا مرمان كيقف كتاجر كمسلم كان لو بهاي إنه سكيل عليه بنت ويا ولا ريا بنت وانصار شجني خطر ويا إلهي ولا تدع كل حلاف مهين هماز مشائم بالنميم قرأ إلهي سبحانه وتعالى وكذا شيء مركل النبي عليه الصلاة والسلام الحلف
منفقة للسلعة ممحقة للبركة دارتني وحور النبي عليه الصلاة والسلام جناسك أبهيسو ويسعسينيسا وهذا تلفون كانت هذه ويديسو أنكو والله بالله أنت يقول شوكا دنوينا مسلم إلهي كبقيات وآخرده وحس الله والله وركز كقالو لكن نارته وحور النبي عليه الصلاة والسلام ممحقة للبركة بركة ماشي كسر يسابر النبي عليه الصلاة والسلام مركب بركة مهمة مسبرنا مهمة بركة مهمة بنان وحب ما شيخت والله يقان مركب بركة إلهي سوء نصيو وحولها إنه هيستنى إنه بركوبان وأولاده إنه بركودو وإستحاسسك إنه بركوبان وقريه إنه بركوبان وين إنه دارتها إيه وحيابها بينتها إنه كإله لأنه مقرن محوها قاعس جينا قولك قدام بيان كجبحيو وحويان الاحتكار إنك استوى لقيا بينه هذه النخ حسين أما إنه نحن إنه يخسيه وإنه خسيه يعني جناس جعنت أنت بنوحي إنه متشرع النجى على طول إنه كان ولا إنه سبلا جريان إنه وحير بس سمين هاي أما ذلك واحد سبلا جريان إنه فديان بالجيا هاي مهمة واحد تاي احتكار كواحد الاحتكار كواحد هذا حبس شيء إنه عشته شيء ودك صاق علي ومدوي أبا أنت هاي إنه جدال كحرة محايا علي قرب وخدك كجوا يا مركز أنا الكر أقاده ما لو ما باهنا ومدة واحد نعرف جوده كل حنيه هكوعد كينين قفك السيدة يلا النبي عليه الصلاة والسلام حبار أذق بكتل مامين وكل عيو خطرة ومحوية حبارك وحكوش النبي عليه الصلاة والسلام ومسلمين تقفك كاحتكاري حوله يوحي كل ولا الله ينعناها كغبتا السجن إلى وحى كسل لله عذر روح إلى كسل لله النبي عليه الصلاة والسلام يعيب عذر يعيب سو مصيبة ما عيب يعني وحولان يا أبار يا بابا إيه عذر بإلهك وقصة الذي سبحانه وتعالى سادرت الاحتكارك أي نسكت إنه إلهي أي نكع صنه أخلاق ذاس يكوك الله أفر بدن أي لو جبنا هي قفك مسلم كي تاجر كا إنه كده له سي وأنه قف إلهي سبحانه وتعالى جناح سيس وجوده هذا وإلهي وماشي تجارة دي سيتوكان كده سوى فرديا أشر وقرأ صحابة الرقم كاسة لهاينه حتى هردده ده حساب سنشرين قفك مسلم كاهي ما هو وقت اللي يدهره هو هاي دين مساجد كويك iyo diin ma garanaysa ganacsiga ka bax maya qofka muslimka meel kastu joogo waa muslimnimadaas laga baahan yahay inaad ku dadaasho tawfiiqda Allah inoo waafajiyo dambigeena iyo kii walidiinteena Allah dhaafo dhibaatooyinka adduunyada iyo kuwa aakhirada Ilaahay subhanahu wa ta'ala hay naga difaaco mashaakilka oo dhan Ilaahay subhanahu wa ta'ala hay naga rafciyo Ilaahay bogeena burcadaha soo mariyo أمني يا من الله سبحانه وتعالى هاي النصيو خير يا بركة يا الله سبحانه وتعالى كبرينا دبدافع إلهي وديسنا أنت نجح نوصلنا إله سبحانه وتعالى نوع عافيه هذا بالله توفيق وصلى الله وسلم على نحن جزاكم الله خير.